هذا دودي رنيال بعد يا بلبينك تمقشيو وحاتمي دارات كيدي لهم عيدا ودشيو كي ودارتي خركوبة ديدين دي رنيال عيدا مديدكو دي رنيال دافع دنكيا دغنكيا هدهلو دماني نفسدو ككع دي رنيال نفسدو ككع دي رنيال نفسدو ككع دي رنيال ريتشين قاعدين سجل بابور أو البابورتا قريها السارة أو قريها ساريين iyo hal ambalaas iyo hal booyo 10 kaas baabuur aan ku reejinay galmudug oo wakiil ka yahay dawladda madaxweynaha galmudug iyo shacabkeedaba wakiil u yahay Ahmed Macallin Fiqi wasiirka amniga labada qodob bay ahayd waxa uu runtii noogu soo dhamaaday si qurux badan oo farxad leh oo aad iyo aad aanu soo muujinay kalsoonidayadii iyo wadajirkayagii inuu horeyna u jiray haddana aan sii xoojinayno نفي مال عن ودقلين دجالك أرجع حسدا أنا خوارج وكذا خوارج وحلا هذا ضد مسلمين انحراف ديني يقول عي هو ومافيو خرابين أو وح دليله ودقي سجل وهلكن أنا كنت أغني أو خائمين تدل مقالة ضد كل ينتري وحيكون هذا الجري يعني الدين لا أنا يا هاي وهذا الدين مرك أنا ضد الدين أرجع لأمر نسبية وحير هذا ومافيا عصب الله هذا مجيء كذا في سير على التميد ضل الصومالي الدولة كلين عدفتها بس وهشي لكن وحن في ليا إن قرح دي أي قرح ضودي العضي ووقت جبيه وحال ربع مركز ضدك الصوماليات قف كستاب إنه كفكره حدو أديك ما أنت كام قيهي ولا الكاب وعنيا أو كم قيهي إن أنتوا سنكسو جارين هذا أدوكنا ماشي صعوبتكتو وحال ربع جناح ستة من سن ومالها نبدأ جوجا من سن شباب إني ماركتي أي تحوجا قد أطورنسيون ولا نيان حوجا أطور السنة عذاب بعد كوكسبان إيسا هذه أنا آخر شيء قد كابرينيا. mahad celin u soo jeediyo madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Dani iyo madaxweynaha dawladda Galmudug mudane Ahmed Kaariye Qorqor oo shirar isdaba jooga ku galay magaalada Muqdisho toddobaadkii la soo dhaafay ayaa keenay natiijada maantay ah inaan la wareegno gaadiidkan 10ka oo kulli loo wada isticmaalayo hawlgalka ka socda koonfurta mudug iyo galgaduudba meel kasto argagixisadu ay joogto wax badanna gaadiidkani wuxuu ka tarayaa iyo hubkiisa saaran waxay ka tarayaan sidii argagixisada soo duushay loo jabin lahaa sidii argagixisadu aysan u qaadan sidii horay ay ugu qaadan jirtay in qolaba mar ay dubato ama inta weerar ku soo qaado ay kaligeed la dagaalamaan maanta wuxuu gaadiidkani muujinayaa garab istaagana wuxuu muujinayaa in loo midoobay argagixisada in la iska celiyo mana isdhahay argagixisadu way ka awood badnaan kartaa haddii Galmudug iyo Puntland ay isku kaashadaan argagixisadu way ka awood badnaan kartaa dhihimayo waxaan u jeedaa argagixisadii oo jabtay argagixisadii dadka reer mudug iyo dadka labadan maamul ku nool oo nabadgelyo ku seexda argagax la'aan ku seexdaan u jeedaa ififaalo fiican ayaa muuqda waxaan rabaa inaan leadershipka iyo hoggaanka labadan dawlad goboleed aan uga mahad celiyo inay garteen in maaragtay argagixisadaasi aysan qaraabo lahayn ehel lahayn gobol gaar lahayn ayaguba gobolka isaga yimaadeen ayna tahay in la dagaalanka iyo hawsha lagu hayo in meel isuga soo wada jeesto waxaan anagu maalmii labadii bilood oo la soo dhaafay joognay furinta hore waxaan aqinaynaa in argagixisada khasaare xooggan uu ka gaaray 250 ku dhawaad halkaas ay uga dhimatay labadii bilood dagaalkii ahaa xoogaa yar bay maalin dhaweyto moral ku dhisteen baabuur yar oo maaragtay bacaad gashay oo ay gacantooda gashay ayay moral ku dhisteen laakiin maantay waxaan aaminsanahay moralku ka jabayo markay arkaan gaadiidkan cusub iyo qoryahan isdul saaran iyo ciidanka daba socda intaba in moralkoodu uu jabayo waxaan leenahay yaan loo liicin dadka reer mudug dadka reer galmudug dadka reer Puntland dhammaantood in loo wada midoobo argagixisadaasi inaan gacanta wada saarno waa wiilal yar yar oo baahan oo gaajaysan oo been loo soo sheegay oo fikir qaldan laga soo dhaadhacay